kulanti wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeenan xogaha dunida ee ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta dunida ee degal kasta. barnaamijkeenan waxaan ku soo gudbin doonaa markabkii lagu eedeeyay inay afduubtay dalka Iran Prince Asfal oo la sii daayay hanjabadaha ugu dambeeyay ee ka imanaya quwadaha reer galbeedka gaar ahaan dalka Britain talaba military oo laga qaado dalka Iran qorqoro oo shaacinaya leeska musharaxiinta aqalka sare. warbixinadii ugu dambeeyay arrimaha doorashada ayaan idin soo gudbin doonaa xilliga iyo goobta ay ka dhacayso doorashada guddoonka guddiga xildhibaanada gobolada waqooyi oo la shaaciyay iyo gabadha la dhalatay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un oo soo saartay digniin culus oo xasaasi ah iyo xogo kale ayaan idin soo gudbin doonaa. aan ku bilownay guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayaa gordhow war ay soo saareen waxay ku wargeliyeen guddiga doorashooyinka Somaliland qabashada doorashada guddoonka kadib khilaaf xoogan oo ka dhex jiray. guddiga ayaa sheegay in doorashada guddoonka guddiga Somaliland la qaban doono maalinta Sabtida ah oo taariikhdu ay ku beegan tahay 7 bisha Agoosto waxa ayna ka dhici doontaa xerada Afisiyone iyadoo la tiraacayo go'aanka ra'iisul wasaaraha ee uu shalay soo saaray oo laga gaadhay xalinta arrimaha guddiga hirgelinta doorashada ee gobolada waqooyi iyo go'aanada xalay ka soo baxay shirka fogaan arag ahaa ee golaha wadatashiga qaranka ee khuseeyay arrintaasi. waxa uu guddiga hirgelinta doorashada ee heer federaal uu ku wargelinayaa 11 xubnood ee guddiga doorashada in doorashada guddoonka la qaban doono maalinta Sabtida ah ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay guddiga. sidoo kale waxa uu guddiga ka digay dib u dhac ku yimaada waqtiga ee loo mudeeyay inay qabsoonto doorashada guddoonka taas oo looga goleeyahay si loo xaqiijiyo in doorashooyinka labada aqal ay ku dhacaan waqtiga la qorsheeyay si looga fogaado dib u dhac ku yimaada jadwalka doorashada. waxaa mar labaad dhammaan xubnaha guddiga la farayaa in doorashada guddoonka guddiga Somaliland la dhammaystiro waqtiga kor ku xusan. warbaahinta ayaa sheegtay waqtiga uu guddiga hirgelinta doorashada ee heer federaal u mudeeyay qabashada doorashada guddoonka Somaliland ayaa waxaa soo go'aamiyay ra'iisul wasaare Roble. sidoo kale waxaa xusub mudan in ra'iisul wasaare Roble uu shalay kulan la yeeshay guddiga doorashooyinka ee Somaliland u matalaya labada aqal ee baarlamaanka. dhaga kale madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Kaariye Qorqor ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda uu ku dhawaaqo leeska musharaxiinta aqalka sare ee Soomaaliya. leeska musharaxiinta ee la shaacinayo ayaa sida wararku ay sheegayaan waxaa ka soo dhex muuqan doona siyaasiyiin iyo mas'uuliyiin horey saameyn weyn ugu lahaa siyaasadda oo uu ugu horeeyo Yuusuf Geelle Ugaas iyo Cabdi Axmed Uxulow Dhagdheer oo labadaba sabab u ahaa in Qorqor uu noqdo madaxweynaha maamulka Galmudug. madaxweyne Qorqor ayaa la filayaa in leeska musharaxiinta uu ka reebo Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo ah musharax u taagan xilka uu ku fadhiyo Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid oo ay saaxiibo dhow yihiin madaxweynaha Galmudug. Cabdi Qaybdiid ayaa la filayaa in leeska lagu soo daro. Xaaf ayaa horey uga digay dagaal iyo colaad haddii Qorqor uusan cadaalad u falin dhammaan dadka xilka raadinaya waxaana go'aanka u horseedi karaa xiisad. Galmudug ayaa haddii ay shaaciso xubnaha u matalaya aqalka sare waxay noqonaysaa maamulkii saddexaad oo si rasmi ah u soo gudbiya xubnaha doorashada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyadoo ay hore u soo gudbiyeen maamulada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. dhaga kalena warbixinada kale dalka Britain ayaa golaha ammaanka qaramada midoobay ka dalbatay inay ka jawaabaan waxay ugu yeedhay dhaqanka Iran ee halista ku ah marin habaaminta caalamiga halka xarunta ammaanka ee badaha ee Cumaan bayaan ay soo saartay ay ku sheegtay Talaadadii markabka la afduubay ilaa afduubay xeebaha Imaaraadka in la sii daayay Arbacadii. xogayaha arrimaha dibadda ee Britain Dominic Raab ayaa sheegay in golaha ammaanka qaramada midoobay ay waajib ku tahay inay ka jawaabaan Iran kadib weerarka lagu qaaday booyad shidaal oo marayay xeebaha Cumaan toddobaadkii hore taas oo ay ku dhinteen 2 qof iyadoo sidoo kale kalinkii dambe ee shalay la sheegay in la afduubay markab ganacsi. wasiirka arrimaha dibadda ee Britain ayaa ku eedeeyay Iran inay khalkhal gelinayso gobolka wuxuuna yidhi goluhu waa inuu ka jawaabaa dhaqanka xasilooni darrada ee Iran iyo ixtiraam la'aanta sharciga caalamiga. Britain iyo dalalka kale ayaa warqad u diray golaha ammaanka Talaadadii iyagoo ku eedeeyay Iran inay khalkhal gelinayso amniga maraakiibta badaha iyo in ay ka dambeysay weerarka lagu qaaday
markabka ay maamusho shirkad Israa'iil laga leeyahay, waxaana ay ku soo beegmaysaa digniinta dalka Britain xilli su'aal ay ka taagan tahay cidda afduubtay markab shidaalka qaada ee Princess Asphalt oo shalay Talaadadii laga afduubay xeebaha ku yaala Imaaraadka Carabta. Ciidamada badda Ingiriiska ayaa laga soo xigtay in afduubka markabkani uu ka dhacay meel u dhow xeebaha Imaaraadka Carabta. Ururka la socoshada badaha ayaa ku dhawaaqay afduubayaasha markabkani inay ahaayeen kooxo ay taageerto Iiraan. Dhanka kale, xarunta badbaadada badda ee Cumaan ayaa soo saartay bayaan ku saabsan markabka shidaalka qaada ee Princess Asphalt kaas oo laga afduubay xeebaha Imaaraadka. Xaruntu waxay sheegtay in ciidamada cirka Cumaan ay sameeyeen baaritaan dheeri ah si ay u ogaadaan cidda afduubtay markabka. Xarunta ammaanka badaha ayaa sheegtay inay hayso xog ku saabsan afduubka markabkaasi shidaalka oo sitay calanka Panama, waxayna intaa ku dartay in ciidamada Cumaan ay ka howlgaleen si ay ula socdaan goobta markabkaasi lagu afduubay. Warbaahinta reer galbeedka ayaa soo xigatay ilo wareedyo dhinaca amniga ah, waxayna sheegeen inay rumaysan yihiin in ciidamada Iiraan oo taageeraya maleeshiyaadka gobolka Talaadadii ay qabteen markabkani oo marayay biyaha gacanka xeebaha Imaaraadka, gaar ahaan meel ku dhow Fujairah. Warbixinta reer galbeedku waxay sheegtay in markabkani Asphalt Prince uu ku sii jeeday marinka Hormuz. Wakaaladda wararka Reuters oo soo xiganaysa 3 ilo wareed oo ka tirsan laamaha ammaanka ee gobolka ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in ciidamada Iiraan ay taageerayeen markabkani in la qabsado. Sidoo kale, warbixinadu waxay ku ramayaan in dhowr markab oo gobolka ku sugnaa maalmihii ugu dambeeyay ay la kulmeen waxyeello bartilmaameed. Xiisadda gobolka ayaa cirka isku shareertay kadib markii weerar toddobaadkii hore lagu qaaday markab Israa'iil ay leedahay oo marayay xeebaha Cumaan. Weerarka oo lagu dilay 2 shaqaale ah oo mid ka mid ah u dhashay dalka Britain halka ka kalena uu dhashay dalka Romania. Inkasta oo ay beenisay Iiraan inay ka dambeysay weerarkaasi, balse waxay dhalisay falcelin xoog leh oo ka timi wadamada reer galbeedka. Britain ayaa dibadda ka riixaysa in tallaabo military looga jawaabo Iiraan. Ugu dambeyntii, xogeenan gabadha saameynta badan ku leh dalka Kuuriyada Waqooyi ee la dhalatay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa ka digtay in dowladda military Kuuriyada Koonfureed iyo ciidamada Mareykanka uu wiiqi doono rajada laga qabo xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya labada Kuuriyo, kadib markii dhowaan ay soo saartay Pyongyang inay doonayso inay furto dhanka isgaarsiinta ee ka dhexeysa. Qoraal ka soo baxay Kim Yo Jong oo la dhalatay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi oo ay baahisay warbaahinta dowladda ayaa si gaar ah ugu socotay Kuuriyada Koonfureed, taas oo ay ku xoojinayso fikradda ah in go'aanka Kuuriya ee Waqooyiga ay dib u soo celisay xiriirkeeda Kuuriyada Koonfureed looga dan leeyahay in lagu cadaadiyo Seoul inay ka dhaadhiciso Washington in tanaasul ay ka samayso wadahadallada nukliyeerka. Mararka qaarkood waxaan maqalnaa sheeko aan wanaagsanayn oo ah in dowladda military oo wadajira ay dhex marayaan ciidamada Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka oo dhici kara hordhac aan la jeclaysan oo si weyn u wiiqaya rabitaanka hogaamiyaasha sarsare ee Waqooyiga Kuuriya iyo Koonfurta oo doonaya inay arkaan tallaabo loo qaaday soo celinta kalsoonida ee labada dhinac, taas oo sii xumanaysa xidhiidh dhex mara labada dal. daandaansiga militariga ee uu hogaaminayo Mareykanku. Gabadha la dhalatay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi oo la aaminsan yahay inay tahay haweeneyda bedeli doonta waxay intaa ku dartay dowladdeena iyo ciidankeenu waxay si dhow ulana socon doonaan dhammaan in dhinaca Kuuriyada Koonfureed ay soo bandhigaan dowlatus military oo dagaala. Dowlatuska joogtada ah ee u dhexeeya Seoul iyo Washington waxay ahaayeen kuwa sii horinaya cadaawadda muddada dheer ka taagnayd gacanka Kuuriya, iyadoo Kuuriyada Waqooyi ay ugu yeedhay tijaabin duulaan oo ay kaga jawaabayso sida ugu habboon. Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka ayaa marar badan sheegay in dowlatuskoodu uu yahay mid dabiici ah. Dhowr sano ee la soo dhaafay, Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka ayaa baajiyay ama hoos u dhigay qaar ka mid ah dowlatuskooda military si ay u taageeraan dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu soo afjarayo xiisadda nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi. Kuuriyada Koonfureed ayaa Khamiistii waxay sheegeen in Seoul iyo Washington ay dib u eegayaan xaaladaha COVID-19 ee ka jira dalkaasi iyo dadaalada lagu gaadhayo ka hortagga nukliyeerka ee gacanka Kuuriya. Diblomaasiyadda uu hogaaminayo Mareykanka oo ujeedkiisu yahay in Kuuriyada Waqooyi laga dhaadhiciyo inay ka tanaasusho barnaamijkeeda nukliyeerka si ay u hesho abaalmarin dhaqaale iyo siyaasadeed ayaan horumar samayn tan iyo markii shir madaxeedkii labaad ee Kim Jong Un
iyo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu burburay. dowladda Kuuriyada Koonfureed oo uu hogaamiyo Moon waxay doonaysaa heshiis ballaaran oo dhex mara waqooyiga Kuuriya, laakiin Kuuriyada Waqooyi ayaa mar dambe bilowday hadallada kulul ee u jeedinaysa Kuuriyada Koonfureed iyadoo sheegaysa in aysan dhexgelin macaamilka Mareykanka. bishii Juun ee sanadkii hore, Pyongyang ayaa sidoo kale jartay wadaxaajoodyadii curdanka ahaa ee kala dhexeeyay Seoul, waxayna burburisay xafiiskii isku xidhayay Kuuriyada Koonfureed kadib markii labada Kuuriya ay dib u fureen wadaxaajoodyadooda. ka hadalka tallaabooyinka dib u heshiisiinta ee waaweyn sida shir kale oo u dhexeeya Kim Jong-un iyo Moon ayaa si dhaqso leh loogu ololeynayaa Kuuriyada Koonfureed, laakiin gabadha la dhalatay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Yo Jong waxay ku tilmaantay dareenka ka imanaya Kuuriyada Koonfureed xugun degdega